waxaa maanta kulan ballaaran ku yeeshay safaaradda Soomaalida ee dalkani Kenya ra'iisul wasaaraha dalka Soomaaliya mudane Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo safiirada wadamada South Africa, Spain iyo Hindiya oo ra'iisul wasaaruhu sheegay inay ka wada hadlayeen sidii kor loogu qaadi lahaa xidhiidhka diblomaasiyadeed ee kala dhexeeya wadamadaasi dalka Soomaaliya. sidoo kale ra'iisul wasaaruhu waxa uu ka warbixiyay socdaal uu dhawaan ku tegay dalka Talyaaniga iyo shirka dhawaan Soomaalida loogu qaban doono wadanka Ingiriiska. ra'iisul wasaare Gaas oo kulankaasi kadib shir jaraa'id warbaahinta u qabtay ayaa waxa uu ka warbixiyay ujeedooyinka kulankan maanta. dowladda South Africa waxay naga codsatay in aanu xiriirkii diblomaasiyadeed soo celino. wada socotaanoo dowladda Soomaaliya waxay dhacday 1991 ka bacdina dowladda South Africa apartheidkii waxay duntay 94 marka dowladdii ka yani waqti aanu dowladda ahayn xiriirna ma yeelan karin sababtoo dowlad apartheid oo xun oo cunsuriyada ee wadanka ka jirtay. marka hadda waqti waxaan ku soo beeganay wadankeena anaguna aan ka baxayn colaadii iyo shidadii aan u gudbayno waqti nabadgelyo iyo horumar. iyaguna marka maadaama ay community badan oo Soomaaliyeed oo ilaa 200,000 oo qof gaaraya ay ku nool yihiin wadanka South Africa. South Africa uu yahay wadan muhiim ah, wadanka ugu weyn weeye Afrika dhaqaalahan markii la eego. waxaa laga maarmaan inaanu xiriir yeelano iyaga naga codsaday inaanu la yeelano xiriir diblomaasiga anana waa soo dhaweynay inay safaarad ku yeeshaan Soomaaliya anana safaarad ku yeelano wadankooda. arrintaasna waxaa ka shaqeyn doona safiirka marka inoo jooga ayaa maartay dhamaystirkeeda aan u xisaaranay. marka taasaan ku hadalay South Africa si waan isku afgaranay. dowladda India waxaan ku hadalay waxyaabo badan oo runtii iyagana dan waa naga dan noo ah. waxa ugu weyn waxa weeye midaan waa in aan iska wareysano arrinta burcadbadeed oo dad badan oo India ayaa ku xiran waxyaabaha Soomaaliya lagu haystaa. yani ganacsiga labada wadan baa laga yaabaa in dhibaato soo gaarto burcadbadeed awgeed. iyo dowladda India oo ah wadan hadda aad moodo in roolkiisa diblomaasiyadeed ee adduunku uu aad u xoog badanayo laga maarmaan ay tahay inaanu xiriir la yeelano. marka taasaan ku hadalay. dowladda Spanish waxaan ku hadalay mashaariicda ka hor Iran Soomaaliya ka fulinaynaa in mashaariicda la dhameystiro horena loo socdo. marka waxyaabahaas tirada badan oo iyo waxyaabo kale oo badan baan ku wada hadalay. ra'iisul wasaaraha ayaa sidoo kale waxa uu ka warbixiyay safar shaqo oo uu kaga yimid magaalada Rome ee dalka Talyaaniga habeennimadii xalayto isagoo halkaasi kulamo gooni-gooniya kula soo qaatay mas'uuliyiinta dowladda Talyaaniga. ra'iisul wasaaraha ayaa waxa uu sidoo kale intaasi ku sii daray mowqifka dowladda federaalka ku meel gaadhka ah ee Soomaaliya ee shirka dhawaan dalka Ingiriisku u qabanayo arrimaha Soomaalida. dowladda Talyaanigu ansi waxay noo sheegtay inay support gareynayso oo ay taageerayso mowqifka dowladda Soomaaliyeed shirka London inay taageerayso road mapka in ay taageerayso wixii ka soo baxay Garowe principles ka soo baxay. marka bay noo cadeysay wasiiradooda noo cadeeyeen ku celceliyeen prime minister kuna noo sheegay. marka arrintaas iyagu meel bay iska dhigeen way iska farxeen wax shaqo aan kulana ma jirna ay yiraahdeen anaguna marka saas ay noo sheegeen ma u qaadanay. mideeda kale baa inii sheegaya qarniga 21aad maanta Soomaaliya wadan xor ah weey dowlad baa ka jirta Soomaaliya. marka maxkamad Soomaaliya hal la galiyo qofka ku fakaraya waa qof aan maskax yani caafimaad qabta kuma fakari karto. marka waxay kasto is yiraahdaanba saas waxa weey anaga Soomaalida ahay ma naga suurta gashaa waxaasi inaan yeelo saas waa may jawaabtu waa may. annaga haddaad i weydiisay ajandaha aan kala naso aan shirka ka yeelanahay waa mid weey labana ma saddexna maaha. ajandaha shirka aan kala nahay lana waxa weeye in adduunku taageero road mapka keediga nabadda Soomaaliyeed lagaga baxayo ku meel gaarnimada lagu helayo dowlad taan ah August 2012 kaas inay taageeraan adduunkuna taageero way waxaan codsanay Talyaaniga ayaa saas ka codsanay Carabta saas ka codsanay cid kasto aan la kulan intaas aan u jeedinaynaa. marka ma rabno shirka London inuu noqdo shir naga dhinac fura barnaamij cusub iyo nidaam cusub taas ma shaqeynayso. ra'iisul wasaaraha ayaa waxaa la filayaa inuu saacadaha soo socda u ambabaxo dalka Djibouti halkaasi oo uu kaga qayb gali doono kulamo lagaga hadlayo xaaladda dalka Soomaaliya. Cabdiraxmaan Umar Cabdi, Cabdiraxmaan Soomaali, Royal TV, Nairobi, Kenya.